وبركاته لما أخيار تنظر إسرائيل يسول هذا وركي عالمك وهذا قبل كده وطن قبائيها مضح قرام البرسنتيفي استويريز الكوبات المقالة البيسان حاول وركه وحاول طيارة أني وها أفتح محمد عبد الدين هذا بدأ وركه هو وين ضاوضيا وها كاملة وزير كاريمها بدها جمهورية الشمال لما هي أمر هذا كسر صار خمرية يعدك كناستها maamulka gobolka Tugdheer ayaa deeqdan boqol baabuur oo qaws ah ka gudoomiye digooda gobolka Gabiley daawadayaal kuwaasi waxay hayaan qodobadii warka ugu door karona iminka iyo haatan waxaad ku soo dhawaataan qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa amar adag ka soo saaray khamri wasiirka dakhliga ahaan marka u horeysa waxaan ahmiyadda koowaad siinayaa oo aan kala dardaarmayaa in nabadgelyada aad loo ilaaliyo marwalba waa waajib saaran meel kastoo aan ka hadlayo inaan dadka xasuusiyo inay nabadgelyada ilaaliyaan halka kan madaxweynaha markii aan soo fadhiisanay waxaa ugu yimid nin odaya oo ka cabanaya oo askata ka ah in deegaanka uu ku batay bahalkan xaaraanta ee khamriga xaaraannimada ka sokow meesha uu ku bato waxaa ku bata xasilooni darrada iyo nabadgelyada xumada iyadoo la ogyahay sababta iyo deegaanku meeshu ku yaala daraaddeed inay sabab u tahay waxaan idin kala dardaarmaynaa oo idinku dhiirigelinaa bahalkaa dhammaanteed inaan loo dagaalano inaynu ka celino dhibaato badan buu inoo keenayaa dawladda haddii aanu nahayna waxba ka wax allaaliya wixii aanu ka qaban karno dhammaan ciidamada booliiska iyo hay-adaha nabadgelyada oo dhan waxaanu ku dhiirigelinaynaa ama aanu kula dardaarmaynaa inaan bahalkaa la dagaalamaan maamulka gobolka Tugdheer ayaa deeqdan boqol baabuur oo qaws ah ka gudoomiye digooda gobolka Gabiley maamulka gobolka ka degmada Burco iyo gudida abaaraha Togdheer ayaa deeq ka kooban 100 gaari oo caws kala wareegay maamulka gobolka Gabiley ugu yabooheen walaalahooda ku tabaalaysan gobolka Togdheer iyo gobolada bariga Soomaaliland deeqdani cawska loogu talagalay in lagu badbaadiyo xoolaha ku nool deegaanada abaaruhu ku habsadeen ayaa waxa ka warbixiyay barasaabka gobolka Gabiley maayirka Gabiley iyo qaar kamid ah madax dhaqameedka gobolkaasi waxaanu soo galnay safar dheer oo hawshan saakaanu idin nimi ma waxaanu bilownay 2 maalmood ayaan ku soo diyaar garownay oo aanu idin ku nimi si aanu gudiga abaaraha iyo dadka abaaruhu haysta ee gobolada bari anakoo isku duuban oo dadkii Gabiley oo gobolkii Gabiley waxaanu doonaynaa oo mas'uuliyiintu idin sheegi wixii ay reer Gabiley ugu deeqeen gobolada bari halkan waxaanu jecelahay inaanu maamulka gobolka ku wareejino annaga oo gobolkii Gabiley oo uu hor socdo barasaabkii iyo maayarkii iyo gudidii abaaraha iyo cuqaashi garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye ayaa deeqdan 100 gundadood oo dhar ah gaarsiiyay dadka reer Soomaaliland ee ay abaaruhu ku habsadeen deeqdan mariyaha oo garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye ay ugu talagaleen inay gacan ka geystaan gurmadka iyo samata bixinta dadka ay abaaruhu saameynta ku yeesheen ayaa waxay maanta ku wareejiyeen maamulka gobolka Togdheer iyo gudida abaaraha gobolkaasi wareejinta deeqdan ayaa waxa ka hadlay Cabdifataax Saciid Jaamac Shalo Maray iyo Mustafa Faarax Qalab oo kamid ah garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye iyo sidoo kale Jaamac Xaaji Axmed oo kamid ah golaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga tirada dalka haya kulmiye waxaana ay ka warrameen budadahan dharka ay ku wareejinayaan garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye gudida abaaraha gobolka Togdheer waxaan u joognaa wareejin ama maxay toolay agab dhar iyo isugu jira bustayaal iyo koodhad agabkaas oo qayb ka ahaa 500 oo bundadood qalabkaas oo ay soo ururiyeen ama ay contribution ahaan iyagu ku keeneen dhalinyarada garabyada xisbiga kulmiye wadka daawanaysa telefishinka caalamiga ah ee Barsan TV tan inta ku kulmi doono warkan warka xiga waa aniga iyo Cabdifataax Maxamed Cabdi oo idinka tagaya fi amaan Allah